السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قروحda badan kusoo dhawaada video cusub muuqaalka ii like garee ii share garee soo dhawaada waa mahadsantii sida quruxda badan videoga hore ay u qurxiseen halkaan waxaa noogu diyaarsan kasaafa ama muxug mar walba daal fara badan ma dareentaa fitamiinka ugu wanaagsan aad isticmaali karteed burka laga sameeyay kasaafa haddii aad u baahan tahay qaasatan gabdhihii gobolada joogo gabdho badan abaawina iga sugaayeen burki waa diyaar insha Allah qaybta aan WhatsApp gabdhaha aan ka hayo insha Allah waa niila wadaagi doonaa muqdisho cadeey jawi waxaa lagu jiraa qaqaboob ilmaha maraqyada muhiim u yahay kasaafa ama muxug badanaa dadka gobolada jooga ma heli karaan gabdho badan baa faa'iideysa markaa ka hadlay abaa ma heli karno sidee noogu soo dhiibi kartaa asigoo sida u waaweyn inaan diyaarad soo saaro way culus tahay ama qof inaa usoo dirsatid waaye waqti dheer ay ka qaadan kartaa laakiin hadda bur ahaan markuu u diyaarsan yahay waa la baaj gareynayaa si fudud diyaar lagu soo saari karaa ama baabuur yaa qaasatan gabdhaha gobolada joogo burka yaa laga sameeyay kasaafa ama muxug waa diyaar gabdhaha u baahan lambarka insha Allah qaybta commentiga nii dhigi doonaa faa'iido fara badan uu leeyahay hooyooyinka u wanaagsan yahay caruurta waayeelada waa nafaqo dhameysan asxaabtii quruxda badan janalkan waa nutrition sanad cusub insha Allah bilowday jadwalo qurux badan oo waxyaabaha wadankeena sida uu cuni karno isku bari karno ilmeen aan ku korsan karno qaasatan ilmaha xasaasiyada qabo gabdho badan abaayeen waxayna abaa ilmaheena qamadiga maadaama wax walba oo ka sameeysan yahay qamadi ee xasaasiyad ay qaba maxaa loogu bedeli karaa kasaafa ama muxuga ugu bedeli kartaa maadaama uu qaali uu yahay waxyaabo kala dalaga ugu dareysaa kasaafahana ugu dhex darsanaysaa kasaafaha raqiis ma wax walba faa'iido leh raqiis ma asxaabtii quruxda badan laakiin qiimo fara badan ku leeyahay wax badan ka helaysaa oo nafaqooyin ah oo muhiim ah qaasatan hooyooyinka uurka isku diyaarinayo hooyooyinka nuujinta ku jiro caruurta inay murqahooda dhismaan si caafimaad u koraan qaasatan xasaasiyad qabo difaacooda jirka kor ina u qaad hadii ay jeceshaa ilmo caafimaad qabo biidnillaahil kariim kasaafa saaxiibka dhigo hadii wadanka markaas meesha ay joogtid ay ka heli karin asigoo burka diyaarsan abay nutrition ka helaysaa yaa abay nutrition aragta wax dabiici aragta waa insha Allah muuqaalkan like fara badan saara gabdhaha jecel waxyaabaha dabiiciga organiga wadankeena ka baxay muxuu marka waqti fara badan oo soo qaatay waa la soo nadiifiyay waa la soo hoolay alxamdulillah waqti dheer qaadanay ugu yaraan waxaa la diyaarinayaa 3 bari in bur laga sameeyo markii la rabo ugu yaraan waxaa la diyaarinayaa 3 bari marka waqti dheer uu qaadanaya juhd fara badan la galiyay alxamdulillah wax faa'iido markii leeyahay juhd markaa galis xataa way u qalantaa intaas in ka badan wuu u qalmaa jabigeena waa sis waa xilli galab ah videogan intaan dambe ما شاء الله تبارك الرحمن إلا هبينك وحيابه أن قبطة إن شاء الله فيديو كو أركي دونتين جبجين أيانتا مقتشع دي دبيل سائدة جرتو إلمه دانا كودهاي هرقب قفع يا جيركو دو قلالة إلمه قدها لغا نفقية دبيش مركي جرت إلمه وحي أباهين دفاع جيركا كور إن لو قادو marka insha Allah daweesha caafimaadkeeda ilaaha nasiyo cudurkeeda Allah naga wado Allahumma aamiin qaybta commentiga insha Allah waa ii dhiirigelin ayaantan commentadiina ma akhrinin sanadka dambe yaa sanadka hore ay iigu dambeysay inaan commentigiina akhriyo digsiga barasharku gabdho badan u yaala oo isticmaalkiisa ka cabsadaan digsigan ha ka cabsan qaab isticmaalka hadii aad fahantid waa digsiga ku dhaqaaleynaya gaaska ku micinaya cuntada qaasatan maraq 20 daqiiqo oo igu bislay ma sha Allah tabaara halkaas oo duleelkaas ka furaysa naqaska hawada ka bixinaysa hawada markaa ka bixisa kadib digsigaas si tartiib ah u furanaysa hilibkaaga ku dhax kala arag yaa shidaalkan oo ku dhaqaaloobaya cambula ku karsa wax walba cunto ah lagu karin kara anoo door cunto ku karina insha Allah niila soo wadaaga badana anoo hilib ku karina niila soo wadaaga hilibkaas 20 daqiiqo saarnaa hadaa hilibka la daadanayo aad rabtid barashar cooker aba isticmaal تيم هيلب أجعلين هدي أعتها هيلب كوكو جعليسين دونا مرق يار لفت يا نفقد كوجرت إنه صارا دكسيجا وأم وحيابه أم كأما نقص وحكو عليو أو وحيابه أو عافمات كبدن إنه وحلو كريو وناكسين يعني دكسيجا كلام كورس دكسيجا مرق مرق كورسيد دكسيجا مرقيس وكنا فق بين صوت وحيتها هاي
dhidid uu sameynaya huurkaas iyo dhididkaas ka imaanayo oo nafaqado dhan shayga meesha ay ku riday nafaqadiisa way soo bixi lafta dhuux dhan ma laha dhuux waa hore ka soo baxay maadaama uun lagu kariyay ama naqaska lagu celiyay hilibka sidaas u turturaya faraha ku cunaysa ilmahaaga ya hilib hada siinaysa ama hilib aad cunaysid hilibka si fiican iskaga bislay qaasatan marka maraq ka rabtid hilibka saaid noo bislaya fiican maraq yar oo macaan badan oo kala aragay oo collagen meesha kaaga soo baxayo marba insha Allah ilmaha maraqeeda u badiya hilibka daa awoodin xataa madaxa majaha caloosha ariga insha Allah caloosha idaha u kariya hilibkan hilibkee waa hilib ida waa ilmaha xasaasiyad qabaan hilibka idaha insha Allah u joogtay burku waa kana sidaas u diyaarsan asxaabtii quruxda badan 2 kiilo noogu diyaarsan yahay ما شاء الله تبارك الرحمن سيفود أقصد dalban kartaa abay nutrition ka helaysa gabdho badan abay marka la wada abay gobol joognaa ma heli karno ma noo diyaarin kartaa codsigiina waa fuliyay inkastoo in la diyaariyo ay adag tahay laakiin muhiimadu waxay tahay gabdhihii meel walba joogaan wixii faa'iido leh insha Allah inay ka faa'iideystaan burku waa nii diyaariyay 2 kiilo u diyaarsan yahay ما شاء الله تبارك الرحمن ilmaha mushaalada u darsan kartaa sidiisa u karin kartaa pancake muufo wax walba oo cunto waa laga sameyn karaa anigoo ka sameyn insha Allah waa niila soo wadaagi doonaa lambarkan qaybta commentiga nii soo dhigi doonaa alxamdulillah ilmihi marka cashada iska soo siiyay mar walba insha Allah naftaada ha iloobin hataa hooyo dareentid daal far badan hurdada habeenkii oo dhan waa hurdas wax marka soo gaadin inaa seexana dareemaysaa maskaxdaada dhan culeys saaran adina waxa dareemaysaa murqa inay ku xanuunayaan adoo wax qabanin inaa wax qabataa dareemaysaa sariirta kama kici kartid adina depression muruga ku heeso adiga dhan waxa tahay qof mar walba daalan waxna aan qabanin hadii intaas aad dareentid insha Allah vitamin B2 alifkaaga baar muhiim ku yahay ina isticmaal supplementigana muhiim waaye seerumkan adduunka u jecla waa Korean seerum badan isticmaal laakiin seerumka saida u jeclahay wuxuu ka sameeysan yahay malab ya ma sha Allah tabaarak waa collagen 20 abaf hadii aad tahay waxyaabaha collagenka insha Allah joogtayso marba 20 hadaa gaartay hadii aad ka sii weyn tahanaya marba insha Allah iska warhay kareenkan wuxuu u fiican yahay haaraha madmadooga nabraha wajiga laba kalarka wajiga qaleelka wajiga saliida leh inta waa isticmaal kareenkan ya ما شاء الله تبارك الرحمن وحالا داك سبودا لدها يا قبل بدن وهارو ميلي كجلان واين إلهي ما شاء الله داو وقدري يا هار هدي أقبتين كرين كان نبره هدي أقبت السريد هدي أقبت يا انتو ان شاء الله كرين كسكالن وحو في عيان جيح يكور قليل هدي ددك وحان وجيغي سليدو ليها اسكينكيغنا دراي واي مرم ان شاء الله اسكينكا دراي هدو يو غودها مرقيك استعمال اسكا نفقي سبلمنتيعب مر والبا غودها اسكا قود مر والبا غودها اسكا قود اسكينكاغا وو قويايا مغنيسيوم B2 الف ان شاء الله هدي هدداد اي xunta استعمال كولاجين مرق hadii aad awoodin ama heli karin mar walba inaa karisid fursad u heleenin supplement asigoo diyaarsanaa helaysa collagenka استعمال لكن مر والبا fiican asoo maraqa inaa isticmaashid kaniiniga magnesium iyo B2 alif hadaa isku cabtid hurdadaada kala aragay noqon doontaa waan ii soo duceyn doontaa daalna waa kareysan doontaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh